السلام عليكم أدبني سلام يا سومالي مريد joogtiin videogaas ayaa soo horbaxay maanta aad iyo aad baan uga naxay maana markii ugu horeysaan aragno videodan oo kale yani way nagu badan yihiin indhahayna way ku badan yihiin inta badan waan aragnaa social media waan ku aragnaa inta la arkay inta la arkin baa ka badan ee social media la soo dhigin ba aad iyo aad uga badan sheekadani waa sheeko xanuun badan weeyaan taxadiyaadka hablaha yaryar lagu hayo wadankii meelo badan baa jirta laakiin wadankeeni waxaad moodaa ilaa casrigan la joogo inay sheekadu ay wallaahi socoto gabdho yaryar oo la saqir suujinayo oo bal gabadha yar xanuunka ka muuqda yacni oohinta ooyis xanuunka ay dareemayso waxaad u malaynaysiin nolosheedu say noqonayso wallaahi waa wax aad iyo aad looga murugoodo in la istaajiyo arrimaha noocan oo laga ololayo aad bay muhiim u tahay laakiin cidda ka hadashaaba way yar tahay oo waxa weeyaan dadku waxaad moodaa in orod lagu dhaafo waxyaabo kale la buunbuuniyo laakiin waxaan yani laga gudbo waa wax aad iyo aad looga naxo damiirka ninkaasi siinaya ilmaha yar awowga u noqon karo ama xataa awowga labaad baa laga yaabaa inuu gabadha yar u noqon karo yacni inuu yani reernimo oo ka raadiyo oo reer u noqoto inan yar oo caruurnimadeedii la siijinayo inan yar oo waxa weye nolosha lagu aasayo waxay lamid tahay gabdhihii markay yaryaraan hablihii yaryaraaye waagii casri jaahiliyatul uula markay dhashaan la aasi jiray ama markay aad u yaryaryihiin la aasi jiray sidii kalun bay arrinkani lamid tahay waxba ma dhaanto waalidkii dhalay damiirkiisu siduu yahay waa wax aad iyo aad looga naxo in ilmihii ilaahay ammaanada uga dhigay ilmahan ammaano ayuu kugu yahay beritoola ammaanooyinka lagaa xisaabinaya ku jirtaa inaad dar yeesho inaad ilaaliso inaad dayac iyo darxumo ka dhowrtay intaad nooshahay buu ilaahay ku faray waa mas-uuliyad ku saaran weeyaan waalidnimadii iyo mas-uuliyaddeedii waa laskaga dhaqaaqay adduunyo yar iyo shilimaad yar baa la siisanaya odayaal yacni qof gabadh caadiba xataa ina nafteeda u quureyn baa ina yaroo laga yaabay ina taayar 13 jir haddii ugu weyn tahay weeyaan waa 13 haddii ugu weyn tahay marka wadi anuu fiirsado wejigeeda is very sad wallahi waa wax aad looga naxo qaar baa imka lasoo boodi doona caashaba nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam wuxuu guursaday iyadoo 9 jira caasha nabi maxamed sallallahu calayhi wasallam waxaa loo doonaa iyadoo 6 jira wuxuuna laa qalqalay iyadoo 9 jira laakiin waxaa intaanad su-aasha ama hadalkaa lasoo boodin waxaa kuu fiican qofkay maskaxdiisa kusoo dhacayso inaad intood siirada nebiga gasho aad ogaatid riisankii ka dambeeyey nebi maxamed uu guursaday caaisha maxay ahayd nebi maxamed sallallahu calayhi wasallam riisankuu guursaday caaisha maxay ahayd noloshii nebi maxamed soo baadh siiradiisii soo baro soo akhri kadibna adiga ayaa markaa jawaabta saxda ah heli doona laakiin intaad cilmigaagu dhegdhegaysi yahay iyo waa la yiri saas weeyaan aad leedahay adoona wax cilmi iyo fact wax cilmi ku salaysan aanaad haysanin waxay kugu tahay dadnimo xumo ay kugu tahay nabi maxamed sallallahu calayhi wasallam caaisho waxyigu ku guursaday waxyigu waxa weeyaan in loo soo waxyoodo ama fariin xagga ilaahay ka timidaya ayuu maxaadani yani nabiga loo soo dejiyay uu ku riyooday riyada nabiguna ambiyadoo dhan riyadoodu waxay ahayd waxyi bay ahayd waa fariin xagga ilaahay ka timiday markaa nebi kastaba waa inuu fariintaas sideeda u qaato weeyaan oo inay yani ku dhaqaaqaan ay ahayd nabi maxamed sallallahu calayhi wasallam wuxuu ku riyooday isagoo malikul jibriil calayhi salaam u yimiday isagoo dhar xariir oo qurux badan wada caaishana ay hoos fadhido kadibna amar la siinayo inuu guursado sallallahu calayhi wasallam sidaas ayuu ku guursaday caaisha la mid ma ahayn hablihii waagaa jiray 9 jirka imikuna 9 jirka waagii lamid ma ahayn caaisha iyadoo 5 jira ayaa waxay qaybsanayd dhammaan suugaantii waagaa jirtay oo dhan waxay aad iyo aad ugu talax tagtay iyadoo da-daasoo 6 jira cilmiga medicinka ama cilmiga dhakhtarnimada oo ay xataa ka caawin jirtay dadka iyadoo da-daas jirta waxay ahayd ilmo yar oo IQ-geedu aad iyo aad u sareeyo oo aad iyo aad u wanaagsan oo above average oo maskaxdeedu way ka duwaneed maskaxda caruuraha la da-da ah xilligaas jiray that's the reason ilaahay inuu ugu doortay in ay risaalada nabi maxamed yani ay sii gudbiso oo maxay ahaydaan markuu nabigu geeriyooday calayhi salaatu wasalaam iyadaana ahayd qofkii axaadiista ugu badan nabiga kasoo wariyey caaisha radiallahu canha ay ahayd axaadiista inta ugu badan ee detailska ugu yar nolosha nabi maxamed sallallahu calayhi wasallam kasoo warisay caaisha ay ahayd reason iyo xikmad ayuu ilaahay caaisha yani ugu amray nabi maxamed inuu guursado ma ahayn waa reason ku salaysan faafinta diinta islaamka ay ahayd oo caaisha qeyb weyn ka ahayd radiallahu canha iskama ahaynuun just nabi maxamed ina yar buu guursaday no qofka
sidaa laho waxaan ku oran lahaa do your own research samee, wax baro, diinta baro, siirada nebi maxamed baro, kadibna adiga ayaa jawaabaha saxda helaya. adu markaa nebi ma tihid, waxa weeyaan gabdhaha yar qarsuujinaysiin daaya, eed bilaa mustaqbalka ka dhigaysiin daaya, inagoo taa ku marmarsiino. nebi maxamed sallallahu calayhi wasalam caaisha umana khadiija radiallahu canha markii geeriyootay waa kii galay depressionka, caamil xusin caamil xasan, sanadkii khadiija radiallahu canha iyo adeerkiisii abu daalib ay geeriyoodeen bay ahayd, wada labadiisii garab ahaa. kadib muddo muu gursanin nebi maxamed sallallahu calayhi wasalam, isaga oo yacni ka naxsanaa ama ka warwarsanaa ama yacni niyad jab xilligaa ku jiray, maadaama xaaskiisii oo aad ku jeclaa khadiija radiallahu canha ay ka geeriyootay. muddo kadib ayuu nebigu sallallahu calayhi wasalam yani guursaday dumarka inta badan uu guursanayna dumar armalisa bay u badnaayeen oo laga dhintay, oo rag saxaaba oo aad u wanaagsanaa oo diinta islaamka usoo halgamay ay ka geeriyoodeen. waxaa jirtay haweeney aada uga weyneyd, sawda bin samca ay ahayd baan jeclahay, waxay ahayd 58 jir bay ahayd, nebigu xilligaa 50 jir oo ahaa, haddana nebi maxamed waa guursaday sallallahu calayhi wasalam. lagama hadla intaasoo dhan xaasiskiisa kale oo dhan lagama hadlo, keliya waxaa laga hadlaa caaisha ayuu guursaday, oo yacni lagu banaysanayo dariiqad hablaha yaryar lagu siqirsuujiyo. waa dariiqad raggu ay ku banaystaan in gabdhaha yaryar ku siqirsuujiyaan. gabar yaroo under age oo weli jirkeedii foom garaysmin, oo weli maxay ahayd aanay gaadhin, yacni weli caruura oo caruurnimadeedii la siijinayo, xilligii jirkeedii ou yacni diyaarka u noqonayo yacni inay reer gasho ama ay reer yeelato, ilmo yaroona gaadhin baa qasab oday 70 jira ama 80 jira ama 60 jira qasab loogu dhisaya, loogu gurinaya. waa waxay aad iyo aad runtii looga xumaado. ummaddan ilaah waxaan ka rajeynayna inuu ilaah xaqa garansiiyo. I didn't want in videogan walaasa ay usii dheeraado, laakiin arrinkan waa in laga hadlo, waa in laga ololeeyo, waa in wax badan dadku iska weydiiyaan haddii la yiraahdo. aad baan idin salaamaya. asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.